السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا ودنا في السود وهذا إن شاء الله هلكم حكوتو بين زوم كيني حكتي عن لينكي عصب فيكس بريمس عن وهالجني وإله نوصف ذي قابكي هوش وسعون دونتو يو سيدا قف كست وسكجي ديوان جلين كرو وحرجينا إن شاء الله إني واحد بدل نوف الوضان وحالنا جمعه وذجير بوحكو جويان ما كان جمعه سقبسنو أو كان هو سي كان سرب عن إسلا سعنو waxaan oo fududaanayso in heer aan gaarno oo wax walba oo aan rajaynayna ahno waxaa jiray cilado badan oo walaalaha haystay ha ugu badnaato wisdarowga waa lagu rafaadsanaa oo dad badan meenan jaanis u heleynin inay lacagtooda dhaqsi helaan kuwa qaarna in badan way ka maqneed marka hadda waxaa fududaanayso insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo in wisdarowga qofku uu on time ku helo uu lacagtan depositkiina oo on time ku sameeyo marka linkiga haddii aan ka bilaawno qof kaste oo FX Premise kamid ah xogteeda aan heenin wuxuu xaq u leeyahay ilaa ay 5 akoon inuu ka sameeysan karo ku sameeysan karo maxaan ku dhahay mastercardkiisa baasaboorkiisa iyo xogtiisa documentskiisa wuxuu xaq u leeyahay ilaa ay 5 akoon inuu ku sameeysan karo marka qofkii akoon kaleeto meel kale ku lahaa dhib ma laha akoonkiisu lahaan doonaa waxa uu sameeysan doonaa marka waxa uu fududaanayso inuu akoon kala sameeysto akoon kale qofku markuu sameeysto oo 5 xabo u lahaa hal hore haduu lahaa hal kale uu sameeysan doonaa markaas waxay u noqonayaan laba akoon labadaas akoon wuxuu awood u leeyahay inuu kan lacag intuu ka gadiyo kan ku shubo kan inuu ka gadiyo kan ku shubo labadiisa akoon lacag uu kala dirsan karaa oo waa free waxaan taas u sii urgelisay FX Premise taasna maxay ku dhacday inuu hal document isku yahay oo hal qof amal u yahay marka muhiimaddu waxa waaye in labada akoon uu hal qof leeyahay markaas wuxuu awood u leeyahay in uu labadooda lacag u kala gadiyo mid kaleeto linkigan wuxuu noo fududeynayaa hadduu Ilaahay yiraahdo in qofkii oo uu la baxo lacagtiisa within 10 minutes uu kula baxo hadduu Ilaahay yiraahdo ayadoo bangiga jaajkii laga qaadayna uu ka yariyahay mar walba uu ka yariyahay had tusaale ahaan mid kale faa'iidooyinka uu leeyahay waxaa kamid ah kow waxaad dhigan kartaa $30 haddaad deposit gareyn kartaa waxaad deposit gareyn kartaa $20 meeshii awal ay ugu yareed $100 kaliya hadda waxaa awoodaa inaad deposit gareysid 30 20 50 waxa aad jeceshahay 5,000 100,000 waxa aad rabtid aad deposit gareyn kartaa $100 sida wada ognahay Premier Bank waxay jaaj gareysaa $100 waxa laga jarnayaa $5 $5 US laga jarnaa mararka qaarna $6 ay jirtaan marba waa si marka qoladan hadda aan nahay shaqo wadaagta waxay ka jarnayaan $100 markii lacagta withdraw aad hadid $4 mararka qaarna $3 waa aragtaan farqiga weyn ee u dhaxeeyo waxay ka jarnayaan marka withdraw hadid $100 $4 mararka qaarna $3 wixii su'aalaha insha Allah dib baan ka furib doonaa idul qaata aan dhameeyo hayga dhaxgelina markii aad deposit sameynaysid Premier Bank waxay jarataa $5 ay jarataa walaalahan deposit waxay kugu sameyn doonaan lacag dhan $2 deposit waxay kugu sameynayaan $2 waxaan filayaa inay fahanteen laakiin haddii aad lacag yar dhiganaysid deposit isma bedelayo lacagtaas u ahaanaya laakiin marka aad $100 deposit gareynaysid ayaa intaas lagu jaaj gareyn doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo marka faa'iidooyinka badan ee ayadana leedahay waxaa kamid ah walaalaha aan haysanin Swift Code ay ku dhiban ee meel kasta intay tageen loo diiday ayagana waxaan u fududeynaynaa insha Allah ayagoo Swift Code aan u baahanin in ay helaan kaliya maxaa looga baahan yahay waxaa looga baahan yahay inay haystaan warqadda gobolka laga bixiyo oo la dhaho dhalashii sugnaantaas qofku u baahan yahay kali dhalashii sugnaanta markuu uu soo qaato waxa laga rabaa inuu bangi kamid ah uu akoon ku leeyahay waa qof aan akoon lahayn waxa uu meel ma dhigan karo mana heli karo wuxuu u baahan yahay kali inuu akoonkaas intuu $100 dhigo haddana kala baxo kadib statementigaas maray oo magaciisii uu ku sameystay maxaan ku dhahay dhalashadii iyo magacaan uu bangiga ku sameystay inay isku mid noqdaan kadib dhalashadaas oo scan soo saaraya iyo warqadan bangi statementiga kaliya scan soo saaraya kadib noola soo xiriiraya waan loo dhameynaya hadduu Ilaahay yiraahdo asna sidaas oo kaleeto lacagtiisa EVC ayuu ku withdraw garanaya EVC ayuu deposit ku sameynaya EVC na uu kala baxaya waxay leeyihiin number ay leeyihiin
waxaa la shaqeeyo walaalo kale la shaqeeyaan nambaradooda insha Allah idin siin doonaa qof kasta waxaan soo dhigi doonaa groupka nambarkaas uu la hadlaya wuxuu leeyahay lacagna deposit gareeyaan raba waxaan leeyahay nambarkaas ku soo dir waxay leeyihiin Salaam Bangi way leeyihiin waxay leeyihiin Premier Bangi IBS maxaan ku dhahay bangi kasta oo Soomaaliya ku yaalo way leeyihiin dahabshiil mid ka rabta u dhigaysaa kadib meeshaas withdraw deposit lagu sameeyaa withdraw markaa sameynaysid ayadana sidoo kaleeto haddii aad jeceshahay bangiga lagu soo diray haddaad jeceshahay nambarkaaga EVC-gaaga kugu soo dhacaysa lacagta haddii ilaahay yiraahdo waxaan filayaa inaad fahanteen qodobka kaleeto ah insha Allah waxaan furi doonaa su'aalaha waxaan filayaa inaad fahanteen wax xoog walba ku saabsan su'aalahan insha Allah waxaan siin doonaa ilaa ay dhowr qof su'aalahana waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidi doontaan waxyaabaha idinka dhiman haddii su'aalaha aan bilaabno Cabdallah ka bilaabayna insha Allah si ixtiraam la isku weydiino haddii ilaahay yiraahdo soo kala faa'iideysano walaal yaasir iyo raxmadka assalaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سو دولا waa codkayga si fiican ma maqashaa aad buu u hooseeyaa laakiin aan maqlaa laakiin u hooseeyaa waxaa waxoogaa microphone-ka iga halaysanaya okay maasha Allah soo dhawow su'aal cashir ku saabsan miyaa su'aal cashir ka baxsan loo weydiin karaa maya wixii FX Premise ku saabsan iyo linkiga cusub kaliya waa ustaadi chance badanna ma hen wixii su'aalaha u badan had dadka isweydiinayaan waa FTMO iyo wixii ku saabsan insha Allah ayadan sidaan oo kale Zoom ugu qabanayna wax walbo FTMO ku saabsan soo wada insha Allah ha iga degdegina iyo dulqaata FTMO noo soo balama FTMO cashirka diyaar waa insha Allah waa idin balaminaya Zoom insha Allah وما صنته وحرجيني إن عشر كسؤال كسابسن أي وديسان سيان هراء وسيسو عنه ماجد سودو وادوها انجنيري هاي سودا سواشا انجنير waxaan ku diir waayay linkigan hadda falki muxuu kaga duwan yahay linkiyada hore waxa waaye hadda aniga account business waa ii furan yahay linki hore aan ku sameystay mar hore aan sameystay linkigan hadda oo withdraw ka dhaqso ah muxuu kaga duwan yahay linkiyadii hore ustaado wax yar waa iridan qofka furaya wax yar waa diyaar waa وما سنتها ولا وحاي ويدي سي سواشا سو لينكيدي كلا استعمال جرنا محوق دويا انيو لينكيدي استعمال جرني wax badan oo duwan yahay waxa kamid ah in wasdarowgaaga isla waqtiga waxa faa'iido samaystid ala bixi kartid muxuu kale ugu duwan yahay dad badan oo ku dhibana jiro Swift core-ka aan heli karin laakiin bank statement haysto AD haysto dadkaas oo awal akoon aan furan karin hadda waxay awood u leeyihiin inay furtaan walba wala fudeedkaas uu ku dhamaamay ilaa yar waxa la soo hadlay lacag ka maqan tahay ilaa 6 bari oo aan withdraw ka wada xaway boqolkeer ma la bixi karaa boqolkeer wala bixi kartaa $20 la bixi kartaa ku dhaaybe waana la bixi karaa waana dhigi karaa Soomaa $20 la bixi kartaa 20 ka dhigan kartaa laakiin waxa ogaataa markii $100 lagu jaaj gareenayo $4 hadaa $20 la baxay ama $3 lagu jaaj gareenayo $20 $3 ay noqon doontaa waayo maxay lacagta waxay maraysaa bangiga kale si maraysaa waxaas oo dhan jaaj jaranayaan marka qof kasta wuxuu awood u la bixi karaa laakiin waxa ogaataa charges kan inuu $100 uu ku go'an yahay $20 kan markaan la baxayo waxaan 10 kasta $1 la socdo miya maya marka la bixisid
markaa la bixaysid $100 boqolkiiba boqolkiiba ها boqolkiiba waa 3 ama 4 ay noqonaysaa boqolkiiba 3 iyo 4 taas haddii aad la bixiso $30 way taagnaanaysaa macnaha waayo lacagta lala baxaayo waxay maraysaa bangiyo badan ay maraysaa lacagta markay isku aruurto ee Soomaaliya ku aruurto ayadoo cash in la qaaday rabta oo brokerka loo geeyo Soomaa ها marka xogta saas waaye waxaan filayaa inaan fahantay walaalo kale aan jaanis siin lahayn insha Allah إن شاء الله هاي Ismaaciil soo dhawo انجينير ودواي ay su'aashaada soo daa انجينير انا يعني وحاوى يعني هورتا يعني اكون في اكسبيريمنس مid hore ay furnaa laakiin deposit maan sameyn yani waa ka mashquulay marka yani linkiga hadda iska diiwaan geliya dhahday oo waa ku fududahay oo linkiga documentiska ay waxaad qaado oo kan iska diiwaan marka su'aasheedu waxay ahayd haddii kana iska diiwaan geliyo oo yani aan wax sameeyo depositka yani caadi mastercard-kayga anoo yani qoladaas yani i deposit garan caadi aan mu deposit garaysan karaa hadhow haddaa mastercard-kaaga kadib hoos garaysid mastercard-kaaga ay kula bixi kartaa hadhow qoladan kuma bixin karaan صح marka haddii deposit aad u baahan tahay si aad dhaqso oo la bixid haddaa u baahan tahay qoladaana ka samaysan kartaa kadib aad la bixi kartaa haddaad u baahneen degdeg haddaad u baahneen oo 4 beri 5 beri aad iska suganaysidna mastercard-kaaga ku xiran kartaa no matter يعني qoladana la xadiya qolada ayaga ku deposit gareynay ayaga marka withdraw sameynaysid meesha rabaan yani hadda bankruptina bangi meesha rabaan soo diray hadda EFC aad iyo aad waa fahantay saas waa engineer waa maasanta insha Allah numberkan waa ka sugeynaa doonayna groupkan soo dhigi doona insha Allah iska sii diiwaan geliya dad badan oo hadda is diiwaan geliya jiro akoomadooda pending yihiin iyo qaar incomplete saaran yihiin documentskooda ha geliyaan insha Allah isla markiiba active looga dhigay haduu Ilaahay yiraahdo shaqadu way soconaysaa qofkii inuu shaqeysto diyaar u ah caqabad insha Allah ma arki doono caqabada duu arkana oo uu ka gudbi doona insha Allah waa la xalinaa jimcaha soo dhawo السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله horta arrinkan arrin aad u wanaagsan waaye aniga laftarkayga maanta waxaas lahaa $40 deposit dig laakiin waan laga diiday waxaa la 100 ka yar deposit laga yeeli maayo marka barnaamijkan aan ugu soo kordhiso barnaamij aad u wanaagsan dhalinyarada aad buu caawinaya qofkii lacag badan aan haysan oo $100 ka badan ka yar haysta 90 70 50 20 waa alf waxa waa chance waa fursad soo baxday weeye aad baan kaga mahadcelinayaa hadda laftarkeeda waa isku dayay linkiga waa raacay laakiin waa khasab inaad marka hore isdiiwaan geliso markaas ayaa deposit samayn kartaa marka waa ku sirmay waa noqon inaan soo diiwaan geliyo marka aan 20 kiga bar 40 kiga bar ku deposit gareeyo aad iyo aad insha Allah marka diiwaan gelisana magaca ii soo dir haduu Ilaahay yiraahdo active hor lagaaga dhigaa insha Allah aad baa mahadsan injineer aad iyo aad waxa waaye aashi aan qabyaalka ma jawaabteeda ka helay mahadsantahay aad iyo aad mahadsan doonaa soo dhawo walaasheen ubax waa maadsantahay injineer aad iyo aad kugu mahadcelinaya hal su'aalan qaba halka su'aal ku weydiinaya waxay tahay haddaa Swift code iyo bangi statementiga aan ka haysto bangi kale mastercard kale aan bangi kale ka haysto labadooda isku isticmaali karaa magaciga haday ku wada qoran yihiin maya haddii Swift code-kii waxa aad haysatid linkan waa samaysan kartaa oo waa isticmaali kartaa linkiga laakiin waxaad samayn karin inaad mastercard-kaaga kadib hoos garaysid asaga aad kula baxdid way adkaanaysaa waayo laba bangi bay kala yihiin xogta isma laha magacaas lahaada laakiin bangi ahaan isma laha marka mid waa inaa informationkiisa dhamaystiraa ها واساس واد اوكي ما سنتا محمد عمر سودو أكو ما أستاذ waxaan ku weydiinaya anigu waxay tahay
weli horey maana furan wax akoona waxaana joogaa Puntland marka Puntland waa caadi soo maaha waan soo apply garan karaa anoo meesha jooga aad iyo aad haddaa ID iyo bangi statement ay haysatid waa diyaar caqabad kale kuma xirayso ha marka bankigu ma ku doono mise waa bankiyo gaar ah baa jira ku doono ka rabtid ka mid ka isticmaashid daabshiil haddaa isticmaashid oo bangi statement ka soo qaadatid ID-gaaga magaciisa isleeyihiin waa diyaar ha hayo ustaad waa mahadsantahay anuu intaas soo qoray aad waa mahadsantahay soo dhawo dhimbil soo dhawo dhimbil Cabdalla dhimbil soo dhawo insha Allah Axmed Yacquub waa kugu xijinaya walaal dul qaad insha Allah dhimbil waa iska fur waa codka soo dhawo Axmed Hello, engineering. hawla Engineer waa mahadsan tahay. Kaliya waxaan u baahnaa su-aasheedu waxay aheeday marka hadda aniga wax deposit garanayo waxaan ka deposit garayaa maxaan ku rahdaa mastercard-kayga marka withdraw la baxana mastercard-kayga withdraw kala baxa hadda marka wax deposit garanayo master looma baahno oo waxaan ku deposit garanayaa in aan idinka aan idin soo diro ama linkaga isoo dirisiin qolyaha ama numberka inaan inta u diro oo aan idhaahdo ii deposit gareeya idinka so marka MT4-ka si caadi ugu isticmaali karaya somaha ID-ga iyo code-ka ay siinayaan oo account caadi FX Primus oo caadi u noqonaa waa account caadi FX Primus waxaa kala duwan kaliya meeshii aad fan account aad sameyn lahayd waa lagu sameynaa lacagtana marka la baxdid waa lagu bixinaa EFC-gaaga ama bangigaaga jecesha lagu soo dhigaa marka aad lacagta diraysidna ama bangigaaga rabtaa ku diray ama EFC ku diray okay lacagtan wax limida ma lahayn qofkaas inta awood dhigan kartaa lacagta wax limida ma laha laakiin waxa u yar $20 $30 u yar waxa la dhigan karo awal meeshii 100 ugu yareed hadda waxaa la fududeeyay 20 ama 30 ama waxa u yar maxaan ku dhahay dhigashadana saasa u yar la bixistana saasa u yar fiigi magaalada Muqdisho wax xaruna miyaa ku leeyihiin magaalada Muqdisho oo linda soo booqdo xaruna ku leeyahay ha waa ma santa luqan kala socdo insha Allah ay wala insha Allah soo dhaw Yusuf Abdi Xaashi هاي ديمبل سولو هلو هلا مالي مقرأ أستاذ قالوا مقرأ عادي أستاذ عادي بأخذت كلام مهد على شغله وين عرفت بنيرة الصومالي وهاي السيد مركو بعد كودي أستاذ أدو حد يكوبا محربا إن سميستو أدو بروكا FX Primus إن كسميستو بحركي أنتي هوران واكم مقنع يوم تغانا الزوم كجدال بانك سو قلي بركة أستاذ dadka hadda kula hadlayo waxa uu badnaayeen dad hore u lahaa baalkii marka iga waran hadda iyo kow markaan rabo inaan ka furto steps nooceeya u maraya ma linka waxay noqonaysaa inaan ka raaco aan soo dhigtay mise si kale aan u soo marayaa jidda ustaag bankiga aad already waa iska soo diiwaan galiyo banki waa haystaa kawlaha kale see u maraya ustaad iyo jilo okay ma passport ba haystaa ma ID ba haystaa ma dhalasha haystaa maxaa haystaa aduu passport okay passport hada haystid documents kana haysatid sidii caadiga ahayd isku diiwaan gelinay markaas diiwaan gelisid akoonka pending uu noqonaa documents kaga gelinay pending ka laga qaada active laga dhigaa markii active laga dhigo kadib numberka aan soo dhigi doono ayaad la xiriiraysaa ama WhatsApp ka kala hadlaysaa ama lacagta u diraysaa EFC maxaa ku dhahay sad bangi to bangi premier bangi Islam bangi waxa jeceshaa ugu diraysaa lacagta kadib waa lagu deposit gareynayaa faanti oo marka hore waa inaan brokerkii iska soo diiwaan galiyaa aduu oo ay aqbalaan kadib aan la soo xiriiraa waa inaad broker iska diiwaan gelisaa oo linkigan inta raacida iska diiwaan gelisaa kadib aan la soo xiriirtaa active laga dhigo kadib baa insha Allah lacagta igan doontaa hawshan hore u sii soconaysaa
ha ustaad aad iyo aad baa umahadsantahay aad iyo aad baa umahadsantahay insha allah midda kaloo aan rabay inaan kugu daro ma dadka fursadda waxay u furan tahay dalka keliya jooga mise dadka maqanba oo xagee dibadda mise dalka aduu dibadda sida Kenya iyo Uganda iyo kale qof walba u furan tahay qof walba laakiin caqabada dadka ay haysato ugu dhibka badan haysto waa dadka Soomaaliya jooga haddii adiga aad dibadda jirtid waxaa caadi waa iska diiwaan gelinaysaa linkiga waxaa isticmaalaysaa bangi kaarkaaga ku dhiganaysaa haye ustaad aad iyo aad baa umahadsantahay aad iyo aad baa umahadsantahay haye insha allah waxaan siinaynaa soo dhawaad Axmed Taajir السلام عليكم انجينير ياسر غير عليه هو مال بوقا جوجتا codkaagana lama maqlo daahir soo dhaw daahir cod iska fur الله يوقشا مقلا walaal aad baa u mahadsantahay marka hore sida caawimaanta buuxda aan siinaysan marka waxaan u baahnaa inaan ku weydiiyo saadow haddii aan haysto master card dokumentiyadan ay dhammaystiran yihiin FX Primus aan iska diiwaan geliyo master card waan dhigan karaa waan kala soo bixi karaa maahan oo lacagta ayadoo waxba la igu xijeen aday kugu xiran tahay haddii aad sugan kartid 4 maalin ama 5 maalin ama 3 maalin waa caadi waa dhigan kartaa waana kala soo bixi kartaa dhigista 4 maalin may qaadanee iyo bixisto maya dhigista waa 5 minute dhigista dhib ma laha caqabada waxay ka jirto waa withdrawga waa la bixista waa ugu badnaan 4 maalin waana ugu badnaan 4 maalin marmarna 6 maalin ay noqotaa haddii jaamku u badan yahay marka hadda marka waxaan zoomkan markaan soo gelayay maga dareensaneen waxyaabaha looga hadlayo markaan soo galay kadib waxaan dareemay in linki idinka aad leedihiin la iska diiwaan geliyo lacagna aad u dhigtaan caawimaad aad sidaa ku siisaan marka sharaxaadka bal iga siitaa groupka hore maad uga sii mid ahayn miya groupkan iskaashi ku jira marka groupkaasaan ka helale linkiga kulley ma aqaano wax geeyey dhib ma laha waxaa samaynaysaa hadduu ilaah yidhaahdo luuqa igala soo hadal insha allah anaa ku caawin doono groupka wadani FX nagu soo biir insha allah wadani FX caadi waa uu soo biiri karaa maano uu ku furaya ku soo biir insha allah luuqan igala soo hadal insha allah anaa ku caawin doono ayo walaalama mudanaya maxaa ugu qoran jaamac ciise jaamacu gacanta kuma taagna walaalow dadkay gacanta u taagantaan siinayna insha allah maxamed daar soo dhawo aad iyo aad meeshaan qabo waxay tahay markaad ku diiwaangelinayo kaleeto Primus oo kaleeto Primus macnaha dad oo institution weyn oo macnaha sharci haysto waaye laakiin hadda dadka aad sheegaysid oo aqoomada qaaska leh sidee lagu aamini karaa macnaha kalsoonida aan ku qabi karo isago Primus sida u aamintaa dadkan u aaminay waa dad Primus ka soo qaatay linkigan oo xogtooda lahayo oo diiwaan gashan waayo waana haddaa rabtidna waa baari kartaa Primusna waa la hadli kartaa waxaa dhigi kartaa nimankaas ka waran oo screwgaas bixiyo safe miya ayaga ku sheegayaan waa isticmaal kartaa ay ku leeyihiin mas'uuliyadda ugu weyn waxaa hayso FX Primus nimankaana ayaga la xisaabtamayo waxna macnaha ma khaldi karaan mar haddeeba linkiga soo qaateen waxaa ka yaalo documents lacag badanaa ka taalo qof wax la iska siinaya ma jiro deposit badanaa ka yaalo ma fahanteen waxay haayaan wax ka badanaa meesha ka yaalo adduunkan qof aaminaya ma laha shuruucu leh wax walba shuruucdiisa mareen way soo buuxiyeen deposit lacag aan caadi ahayn ka taalo ayagana way ku shaqaysanayaan FX Primus waxay faa'iidayaan ayagana waxay faa'iidayaan adna faa'iido kugu jirto waa shaqaysanaysaa $2 iyo $4 oo laga jirtay hal tireeda waxa laga yaabaa inaad ka qabatid
$50 $4 lagaa jirta $46 kaa badan $4 lagaa jirta waxba ma oo lacagtaada in isla markaaba haystaa ku daleysatay ama dadka ku caawisay ama صح صح سؤال ay u taagneed leebis macnaha inta san saddex weydii ma xarun ay أنا ما leeyihiin سنت xarun ay leeyihiin qofku u baahan booqan karaa lacag fiican dhiganayo lacag cash uu geyn karaa xataa asoo ujeeda loo dibos gareyna أوكي ما سنت هذا ما سنت waxaan siin doonaa insha Allah qofka ugu dambeeyo jaamac ciise maxamed waxaan waqtiga salaada dhow insha Allah qofkana ugu dambeyn doona هاي أستاذ سلام عليكم كورة أهلا وسهلا سلام أستاذ oo ka qaado ustaad codkaaga waxay kor u qaad waxa weeyaan kulli waxaan inankii ku saaday galabta ku lahaa waxaan ku dhibanay wadarowga oo dhibaatada sani haysatay weymaka waxaa liigu yiri sugsteed cisho marka waan leeyahay maxay waan leeyahay akoon waxaan ku isticmaalaa daabshiil waxaan kula baxaa mastercard-kayga marka imika linkiga hadda iska diiwaangeliyo lacagtii toos ugu wareejin karaa imika linkigan cusub iska diiwaangelinayo aad iyo aad waa u wareejin kartaa waayo dukumiintigaaga horaa ku jiro kana dukumiintigaaga gelinaysaa markaas awood waxa u leedahay inaad waqtiga aragto u kala gedisid labada akoon waayo adaa xor waa akoon kale waa sax haddii makadan bilaaban ka wareejiyo lacagtii hadhow mastercard kula bixi karaa isla sidii hore oo kale un aad iyo aad waa kula bixi kartaa ayo soo mahadsanid aad waa mahadsantahay waxaan siin doonaa walaalkan codsaday Cabbaas waa insha Allah qofka ugu dambeeyo hadduu Ilaahay yiraahdo aad buu u soo codsaday hay Cabbaas soo dhow hello engineer may maqashaa engineer aan FXM ku leeyahay akoon ma garat sax marka Kenyana joogaa badanaa waxaan ku qabaa ciladan caadi aad iyo aad marka haddii kana iska diiwaangeliyo ciladaas Kenya kan aan ku qabo ma laga xalin karaa waa laga xalin karaa laakiin de Kenya caqabada ku qabto maxaa kamid caqabada kan hadda waxaan sameeyaa marka withdraw la baxayo yaraa mastercard-kayga wixii hayo waxaan dhahay ii soo bixi ilaan ani Kenya xagga wax yaraan joogaa shaqadeedii wixii waxaa Soomaali waay muddada aan joogaa marka waxaan sameeyaa yarkaas ii soo bixi dhahaa okay markan Soomaali waa anfacaya aad buu ku anfacaya marka aad buu anfacaya Soomaan aad buu ku anfacaya insha Allah waa samaysan kartaa haddaa waddan ka maqan tahay xataa mastercard-kaaga wadataa moogtahay ama premier haada ama ABS haada ama meeshu raba haado waxaa leedahay marka lacagta la baxdid WhatsApp kala hadlaysaa premierkii ugu shubaa leedahay premier ugu shube meesha joogtaa kula baxe waa mastercard ahaan oo la baxe ATM-ka la tegay wala ama doro daabshil ugu shubi karaa akoonka daabshil dhigane daabshil tegay jeega qorne waa la baxe waxaaga too easy very good aad baan ku fahmaan aad baan u mahadsantahay insha Allah halkaasaan zoomkeena kusoo gabagabeynayna dhammaantiin waa mahadsantiin waana duubnay insha Allah dukaan soo dhigi doonaa asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu